xafladda daahfurka sanad dugsiyeedka 2016 ilaa 2017 dugsiga sare Faarax Nuure Baligubadle oo ay ka soo qayb galeen madaxda gobolka Hawd iyo degmada Baligubadle shicibka waalidiinta ardayda dugsiga iyo ururada Tawfiiq u tariyo wabqur oo door laxad ka qaadatay leedhka iyo dayactirka iskuulka walajeedada xafladan ayaa guud ahaan daarana daahfurka iyo sii sabootinta ardaydii dhawaan ka baxday dugsiga sare Faarax Nuur waxa ka hadlay xubnaha ururada waalidiinta maamulka dugsiga Faarax Nuur iyo siyaasi Cabdikariin Maxamed Xaaji Cali oo aad ugu hambaliyay doorka ay ardaydu ka gaadhay imtixaankii maalmahan iska soo daba dhacay kulay eedo iyo dhaliilo loo soo jeedinayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada waxaan uga mahad celinayaa wasiirka in aanu layli ahayn ee uu yahay nin degan oo kelmadda la yiraahdo aan media isaguna soo fariisanin oo ka jawaabin waxaan leeyahay wasiirka runtii halaga daayo xagxagashada ururka Tawfiiq waa dad isu tagay oo midoobay oo isugu yimi markaas ay waxa weeye deegaankooda iyo dadkooda wuxuu tari lahaayeen waxna ugu qaban lahaayeen mashruuca ay ka fuliyeen Faarax Nuur secondary school ama solar systemka xafladan qiimaha iyo qaayaha badan loogu talagalay dhowr arrimood ugu horeyn xafladan ujeedadeeda aynu u qabanay ama aynu u sameynay waxa weeyaan in aynu sii sabootino ardaydii sanadkan ka baxday galaaska foorka oo runtii ku baxay darajo aad iyo aad u fiican kana galay imtixaanaadkii qaranka kaalin aad iyo aad u qiimo badan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulka waxbarashada gobolka Hawd iyo maayirka degmada Baligubadle Cabdi Imaan Jaamac oo ballan qaaday inay wax ka tari doonaan bixinta fiiga ardayda jaamacadda anagu waxaan ka qayb qaadanaynaa ardayga ugu horeeya ee jaamacadda ka bixino lacagtaana ay noo soo doonaan gudida waalidiin ha iska yaraadeen tayadooda aad iyo aad u fiicnay tayo wanaagsan bay lahaayeenoo dee 12 baa ahaa 13 biibay ahayd hal baa sii ahaa weli maan arag arday saa soo saarta maanta farxad weyn bay noo tahay in aanu hambaryayno ardaydii ku guulaysatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada 8aad iyo 4aad gaar ahaan waxaan sii xusayaa ardayda ku guulaysatay fasalka 4aad oo kaalin aad iyo aad u qurux badan ka keenay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan gabagabadii waxaa soo afmeeray barasaabka gobolka Hawd Ibraahim Cali Xasan oo aad ugu bogaadiyay doorka ay ardaydu ka gashay imtixaankii shahaadiga ahaa marka hore waxaan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa ardayda runtii annaga naga farxisay gobolka magaca u soo jiiday deegaankoodii magaca u soo jiiday waliba 12 u horeeya ee eeda galay baan runtii si gaar ah aan ugu sii hambalyeynaya aanan ilaawi karaynin waxa la ogaaday oo aan runtii mahad badan ugu naqaynaa wasiirka waxbarashada waxa la ogaaday meelihii daacadda ahaa ee qalin maalka ahaa ee aan qishi jirin ee aan runtii ee daacadda ahaa ayaa kaalmaha hore sanadkan galay oo runtii waxa weeye waa Baligubadle iyo Burco iyo waa meelihii iska maaragtay daacadda runtii ahaa waxaan rajeynayaa labada arday ku xigay oo 2 iyo 3 galayna meel kasta aanu la gaashanay waxbarashadooda inaanu jaamacadeed inaanu daboolo ayaanu rajeynaynaa insha Allah inuu xukuumadda yiraahdo la taageero xukuumadda rabo inuu ku soo beero aad baan u soo dhaweynaynaa xukuumadahan waxaan wada qabanaynaa insha Allah xaflad runtii xaflad lagu sheegayo wasiirka hore gaashaandhiga runtii gumaadka ka geystay ee wadankeena ka geystay oo xaflad xamar looga dhigayo waliba madaxweynaha Soomaaliya uu leeyahay waxba ma geysan wax dhibana ma geysan aad iyo aadna uu dabada uga riixayo aanaad moodayso in inaga leenagu bahdilayo leenagu garaacayo anigoo runtii ka hadlaya xaruntii laga xoreeyay wadanka Soomaaliland laga xoreeyay xaruntii halganka oo ka hadlaya oo nasiib u yeeshay inaan barasaab ka noqdo waxaan leeyahay xasuuqa loo geystay dadkeena waxay ku habboon tahay in maxkamad Soomaaliland ay samayso maxkamadaas oo lagu qaadayo dadka xasuuqa ka geystay oo garyaqaanada Soomaaliland xeerlaaliyaha guud ee qaranka maxkamadaha garsoorka Soomaaliland iyagoo hay'adaha kale caalamiga la tashanaya waxaan anigu soo jeedin lahaa annagoo runtii gobolkayga iyo dadkayga ummadayduba oo xarunta runtii hooyadood ah ayaa halgankii hooyadooda waxaan leeyahay xasan sheekh iyo ragga kale gacanta siinaya taageersan
wixii dambe ay ku yeeshaan in lagu qaado oo maxkamad Soomaaliland ay samayso lagu qaado ma aha inaynu xabaaran maalin walba soo saarno maalin walba inaynu xabaal baan noqonaynaa dadkii lagu haasay ma aha waa in si toos ah aynu uga howlgalnaa oo la maxkamadeeyaa dadkii ka dambeeyay xasuuqa kuwii dabada ka riixayay kuwii falka fuliyay يعني marka in maxkamad la soo taago oo Soomaaliland ay maxkamadayso baan aad iyo aad u soo jeedin lahaa gabagabadii xafladan waxaa jaa'iisado iyo shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanada iyo xubnihii ku suntanaa waxqabadka dugsiga sare Faarax Nuur Cabdiraxmaan Samriye